أنا أوكريه إن أنا قرينا مركز وحياة ريجستر كاسي لوجين كان قف كدو لوجين قريه إن أنا مركز وحاس مش أنا كبحنا ياركنا حتى أنا قيبت نافيجيشن إسكا أيام ستة وسيا مركز يا أوتاجنا أوكي وحبها هنا المركز ماشي أنا كتاجنا يعني إن بارم كويس أنا طبعا كليه حبها هنا إن استعمال حلو مقعوة إن ماشي أنا هوصل أتاجنا ماشي اوكي ماشي يو ال كا يو ال كان حكوس من لوجيك يرا ماشان ku diyaarneena logicaas wuxuu noqonaa markaas dabcan waxaa leeyahay okay get from local storage user info pass garee haddii intaas la soo helo user info waa inaan soo pass gareeyaa daftarkiisa dabcan dhankan inaan soo qaataa okay kadib dabcan waxaa leenahay markaasi haddii uu jiro wax lagu magacaabo okay haddii uu jiro waxaa leenahay markaas meeshan user info haddii lasoo helo qofku inuu login gareeyo caddeynayso kaliya waxaa u baahanahay meeshan waxyaabaha ku qoran inaan soo qaado intaas ayaa u baahanahay intaas kad dheh inta gee ayaa u baahanahay haddii kaleetana waxaa u baahanahay okay waa inaan ka hormarinaa markaasi fragmentaas ka hormarinaa haddii kaleetana waxaa u baahanahay intaan hoose inaan soo qaadano sina fragment ayuu noogu baahan doonaa safe adhaan okay hadda haddaan fiirino muxuu soo muujiyey axmed iyo logout logout haddaan dhahno wax shaqeynaya malaha dabacsa aragtaaba so logout inaan ku xirnaa marka functionkaasi functionka logoutkaas sidee markaasi aan ugu xiraa dabcan waxaan sameynayaa meesha linkiga aan dhahnay iyo xalin on click ayaan ku xiraynaa markaasi on clickkaasna wuxuu noqon doonaa callbackgaasna waxaan soo sheegaynaa markaasi remove from local storage ayaan isticmaali doonaa macnaa local storage-ka datada ku jirta ayuu ka tirtiraa markaas logout qofka markuu dhaho keyga baasgareynna wuxuu noqon doonaa asigana user info ayuu noqon doonaa kaas ayaa markaasi baasgareynaynaa okay dabcan aan fiiriyo hadirtaan logout automatic saa aragtaaba logout ayuu sameeyey home kuma laaban kari oo home hadaa ku laabtan wuxuu leeyahay unauthorized waay okay homeka waxaa rabaa inaan ku xirno function oo automatic usoo tuuraya markaasi hadduu qofka uu login gareynin okay dib aan login gareeyo okay logout okay waxaan u baahanahay magaca saxda qofka inta ka soo bandhignana waa u baahanahay isagana waxaan sameyn karnaa kadib waxaan get from local storage asigana waxaan baas garan doonaa key ayuu leeyahay user info kadibna wixii kasoo laabta meeshaas waxaa leenahay namekiis ayaa ugu baahanahay dabcan qaybtaana saas si lamid ah markaasi meeshaan dhexna taas ayaan ku sameynaynaa safe day waa axmed haddii user kale kusoo galan dabcan waa isbedelaysaa meeshaas sawirkan waa agta AI ku qoran haddaan kusoo galo jaamacina waxaa malinaa kii kaleeta 1 2 3 4 5 6 okay John Doe inuu yahay malinaa si fiican ma xasuustii okay no problem register dheh okay John Doe 1 2 3 4 5 6 kalena markaasi oo John Doe okay JD magaciisa meesha ka soo muuqday sa aragtaanba qaybtaas koran markaasi waa inoo sax laakiin waxaan u baahanahay logout dhahno qofka home ku dhaho automatic in la soo tuuro rabnaa meeshaas
kaliya waxa u baahnaan hal shay formkan haddaad tagno fiiri meelahan use effect aan isticmaalaynay details ka tag okay طبعا أنا أسكت سميسة كرنا حلينا أنا مكسرهم كده use effect استعمالنا حلينا if not get local storage wax ka raadinayna haddii laga soo helin automatic waxa leena return navigate home ka toos u keenina markaas kadibna dependence waxaan noqonaa navigate ka soo noqonaya save leh refresh leh formka ayaan ku dhex qorayaa okay copy deh waxaan u baahnaa inaan ku qorno formka okay طبعا login ka tag deh refresh home tag inta nagu soo celinaa markaasi okay haddii direct asi tagno direct form asa inta ayuu nageli asa waxaana dabcan waxaana loginka ee nagu celiyaa rabnaa sina copy noo dheh formka tag intaan ku bedel save deh automatic da refresh dho kama save hadduu save gareys maa breath kana xoogaa waqti yar iga qaatay okay hadda waa kaas meesha ayuu nagu celiyay haddaan back dhaho waa iga diidaa markaas okay details kadib aan fiiriyo details okay ana authorized asin sidaas lamid ah markaas details kan taga intii haddeertan xagga ku sameeyay ayaan test ku leeyahay meeshaas sina طبعا waa isoo tuuraa markaas saarta project oo noo dhameystiraya markaasi aan ku celiyay markaas log in hadaan dhaho واسبدل دونا كوا register iyo login kaas wuxuu iska bedeli doonaan logout inuu qofka dhigi karo iyo markaas inuu tusnayo markaas userka ku jira magaciisa course-keen iska gaabna inta ayuu ku egyahay dabcan waxaan ku sameyn waxaan ku baranay markaas main stack ku baranay qaabka loo adeegsado qaabka loo isticmaalo dabcan waxaan ku dabaqi kartaa project-ka cusub aad sameynaysid qaabkan camal u isticmaal muhiim ma aha project-ka aad sameynaysid e-commerce hadduu yahay qaabka e-commerce tutorial e-commerce oo kali inaad fiirsatay muhiim maahan لكن واضح أنا كلاود قابك لو سميلها register قابك لو سميلها authentication login قابك لو سميلها قابك database لو حر لها قابك front back end لو سوى حر لها أنت بعد وافنا سنتهاي طبعا حافلها يعني سميته أنت project هي مركزي بدن أو من stack إن شاء الله فيديو حقا إن شاء الله حنسمين دونا حيابك كلتها إن برانو states كreacti قار كمل إن برانو إن برانو سديب لإن حوج أدو سيسانا ولي next.js oo ah markaasi framework oo markaasi oo react ah dabcan react waan aqaanaa laakiin waxa ka sii fiicnaan lahayd inaad si isticmaasho markaas next.js aad u sii baran doonaa qaabka loo isticmaalayo inkastoo fiidiyo badan ay ka sameeyay haddana badanaa kaasaan aad u isticmaali doonaa inta ay ku joojina fadlan haddii aan weli subscribe dhihin channelka subscribe dheh si aad u heshid markaasi fiidiyo wax badan ka faa'iido doonto insha Allah